أيها المؤمنون استقبلنا رمضان بشوق واليوم munaasabada weyn ee Ciid al-Fidr ayaa maanta si miisaan leh waxaa lagu xusay magaalada Burco iyadoo kumanaan dad ay isugu tagayeen barxadaha caanka ah fagaarayaasha waaweyn mise jaamacadda magaalada ay sidoo kale xarumo loo aasayay in lagu qabto munaasabada ciida waxaana badi dadweynaha Burco oo kumanaan gaaraya ay ka xaadireen garoonka weyn ee RMC Stadium waxaana munaasabada dadweynaha kula tukaday halkaasi wasiirka wasaaradda amuraha macdanta iyo biyaha ee Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad iyo mas'uuliyiin kale oo u badan culimada diinka waaweyn ee magaalada waxaana takbiir iyo allabari iyo duco dadweynaha halkaas laga sameeyay kadib munaasabadaasi ugu horeynba ka hadlay sheekha weyn ee sheekul beledka magaalada Burco Sheekh Cali Warsame oo sheegay inay muhiim tahay in dadweynuhu ay xoojiyaan amniga kala dambeynta iyo hagaajinta hanaanka geedo socod ee Somaliland haatan ay ka hana qaaday bariyahan waxa soo baxaya Soomaalida waxa loo yaqaan waliba dadka reer miyiga caqligooda wuxuu la ku xidhan yahay hadba marka intay barwaaqo u heeraan 5 sanadoo isku xiga ayaa dayr iyo guba ayay barwaaqo ahayd dabadeedna waxa weeyaan durba waxa bilbilaamay colaado yar yar oo maxaan idhaahday aan kala joogsanaynin oo maxaan idhaahday marka dambe keeni karta colaad weyn oo ballaaran keeni karta ayaa inta dhacaysa intii barwaaqooyinka lagu jiray dad yar yar colaadii horena aan waxba ka ogeyn oo aan dibteediina aan waxba ka dhadhamin qaraarka ay lahayd iyo dad kale iyaguna qaradlayaal ama siyaasad iyo wax kale ay ku jiraan ama dad kale maxaan idhaahday aan maaragtay masalan mas'uuliyiin ahayn iyo marba waxa weeyaan waxay isku dayayaan inay fidmo uriyaan marka waxa weey dawladdu in badan bay waxay sabab halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo dadweynaha Burco ku baraarujiyay inay wada shaqeeyaan isla markaasina iska ilaaliyaan gelida faldambiyada aan fiicnayn isla markaasina amniga ay dhowrtaan waxa sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in loo baahan yahay dadweynaha Burco inay iska kaashadaan horumarada dhammaan wadooyinka iyo jidadka muhiimka ee magaalada عبادة يسميسو بدي يسوي من ميسو بدي وحبرن ميسو بدي وحبسن ميسو نبض أو بيسن وش نبض واتيم كشيء يلو معلم تعرفوا كتو أيام ميجي أتمنى يسوي عوية روب هاي نوض على إلى مركز شيلال كله شو وأنا كيدون يروح وحسمايو وحول السودان راتها روب واحد مدرسة سوتشرينها أو سكرتها إلى موريسي حيصلوا. وقدمين وحمنا السبت الصحي وسير كوسارة عمره معدن تجيبها Somaliland حسين عبد دعالي وحوامانة يمني جاي كل دبين النظام كوحبرشة يميت كامنية كتير جدهان Somaliland. إسكيل علينا وإنتي إلا إن خرج الروح أين أمريكا كشغينا سير أمريكا إن ما تحسنا إن حسلوا لنا حسنا إن مسؤولين si aad iyo aad dagaal iyo jahdi xoog badan ma loo galay marka yaanay taadayaan amniga naga lumin amniga ayna ilaashano ilaahay wuxuu jecel ka siiyo odayaasha iyo salaadiinta iyo meeyarada iyo hadeeba idmaayo ee buuxay governorska gudoomiyaasha hadii habeen heegan oo ah ee ka shaqeynaya guud ahaan dadweynaha Burco ayaa si miisaan leh waxay xuseen munaasabada Ciid al-Fidr guud ahaan dadweynaha oo farxad iyo ayir ka muuqda ayaa qaarkood waxay la hadleen telefishinka SBC waxaana kamid warahmatullahi wabarakatuh waxaan leeyahay ciid wanaagsan ma leeyahay kullu ummadda islaamka ummadda aan maxaan wax balyeynaya meel joogtaba Somaliland Soomaaliya meel kasta joogto ummadda islaamka يا على كل عام وانتم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا رب السلام ميل الله لميل بدل يدرت يا سلام يا وحن سلام يا عبايك قالقها وحن سلام يا عروب كيدا وحن سلام انت مقل كيغي مقال كيغا تقانا ولا شيء نور اسماعيل وحن سلام يا وحن سلام يا ولا شيء فارس الشيخ اسماعيل عروب كيدا وحن سلام من حاج احمد حاج ابراهيم او لدن جوبه وحن سلام يا انت قالقها في سبوت جامع وحن سلام يا وحن سلام يا مدحوينها محمد أحمد سيلاني مرويسة مدحوينه كحيرينك والله قلت والله بارملانك والسلام يا عيدا كتشيد تشوجع أنو كهرنا العادي أبو السلام ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا مدرب Somaliland مقعدنا واسم فوسي جامع وحن سلام يا باي رويضي وحن سلام يا مدحوينها محمود سيلاني يا مرويسة من ورس وحن سلام يا معلمين تيدا ماموراها إيجا
waxaan salaamay cid kasta muuqayga iyo magacayga taqaan geesta kale goobaha macmacaanka lagu gado iyo meelaha carruurta ay ku meeraroodo ayaa bidi ahaa mashquul damaashaadka farxadda loogu dareeray ciidda iyo munaasabadda dabaaldegyadeeda muunadaysan ee loo qabtay waxaa dareen aada uga duwan noqonaya marka aad fiiriso dadaan jahli karayn amaba aan awoodayn inay ka qayb galaan munaasabadan duruufo jira awgeed guud ahaan magaalooyinka kale iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka togdheer ayay si nabada uga dhacday munaasabadda ciidulfidri cabdilaahi maxamed ibraahim alcadaala telefishinka caalamiga s b c magaalada burco